جعلك خبيوبيو نصيب خدر باجيو قيمات كل عيدك تيدا حسوسي وخالياي قيمات كل عيدك تيدا حسوسي وخالياي kulanti wacan daawadayaasheena qiimaha leh ee ku xiran barta aan YouTube ku leenahay ee Badda Cas Media kuna soo dhawaada warbixin dareen gooni ah xambaarsan oo aan uga hadli doono fanaanka caanka ah ee Nimcaan Hilaac oo ballanqaad wanaagsan u sameeyay wiil aragga naafa ka ah oo heesiisa mid kamid ah si la yaab leh ugu luuqeeyay hadaba muxuu u ballanqaaday fanaanka wiilkaasi muxuu siigsanayaa inankaasi da'dyar warbixintan ayaad kaga baahan doontaa fadlan haddii aad janaalka cusub tahay inta muuqaalkaada bilaaban oo ay tahay marka ay kugu horreysay subscribe dhe sidoo kale gamareelka furo si mar walba aad u heshid warbixinada iyo barnaamijyada kala duwan ee halkaan aan soo gelino mahadsanid aan ku bilaabay fanaanka caanka ah ee Nimcaan Cabdiraxmaan Hilaac ayaa ballanqaad uu ku farxo waxa uu u ballanqaaday wiil aragga naafa ka ah oo si la yaab leh ugu luuqeeyay mid kamid ah heesihiisa gaar ahaan heestii caanka noqotay ee jaceylkii qabyoway wiilkan oo lagu magacaabo Axmed Cabdulla Xasan araggana naafa ka ah oo aan waxba arkin ayaa nasiib u yeeshay inuu ka qayb qaato tartanka heesaha iyo hibada jiilka cusub oo maalmahanba ka socda magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya bandhigan ayaa waxa ka qayb qaadanaya dhalinyaro aad u fara badan oo isaga kala yimid degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir waxaana qof walba uu ku soo bandhigayaa hibada uu Alle ku manaystay gaar ahaan dhalinta jecel inay fanaan noqdaan ama inay heesaan inta tartankan uu socday waxyaabihii yaabka lahaa ee dad badan soo jiitay waxaa kamid ah Axmed Cabdulla Xasan oo aragga naafa ka ah oo kamid noqday dadkii tartanka codadkooda ku soo bandhigay waxaana uu si muusig la'aan ugu luuqeeyay heeska caanka ah ee jaceylkii qabyoobayow nasiib qadar baajiyo qiimad ku lahayd agteeda oo uu hore ugu luuqeeyay fanaanka codka halaasiga leh ee Nimcaan Cabdiraxmaan Hilaac haddaba waa kan Axmed Cabdulle oo heeska ku luuqeynaya qaabka uu luuqda iyo sidoo kale dareenka ugu laree oo soo jiidatay guddigii tartanka iyo dadkii daawanayaba أحمد واد mahadsan tahay maxaad ku tartamaysaa horta waxaan ku tartamaya hadda ogaalaya baniinsan waaweyn inay joogaan waxaan ku soo talagelin lahaa heesii hore laakiin hees oo jiilkayga ah aan raba inaan ku tartamo oo heesii dambe ah haye heestaas aan raba inaan qaado waxaa qaado Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Nimcaan Hilaac la dhahaa fanaanku magac dheer yahay magaciisa wax saas idin sheegay heestan waxa la yiraahdaa jaceylkii qabyooba la yiraahdaa jaceylkii qabyoobe أحمد maadaama aad tahay nin aragga naafa ka maxaad ku dooratay inaad heesto horta heesaa kaliya maahi waxaa ahaa fanka marran ku soo biiray 2010kii waxaa ahaa dadka oo ereyada badan inta badan ereya sameeya ahaa sax laakiin maadaama fanki aan ku jiro markii aan qiimeeyay asxaabtii waxay igula taliyeen inaan barnaamijkan ka qayb galo si maxaa la yiraahdaa aan uga soo muuqdo barnaamijka waa ku fiicanta igu dheen oo aniga doorasho oo aan xaqiiqa ka imaata maan waa asxaabta ay dooqeen halkeed ka digantay Muqdisho Axmed Daniel ka imaadaan Daniel waad mahadsantahay heesta hore u gal noola qaad okay جعلك خبيوبيو نصيب خدر باجيو قيمات كل عيدك تيدا حسوسي وخالياي قيمات كل عيدك تيدا حسوسي وخالياي أنو ديدين قرالكا إنو قدر يحي إسواقو قداني قفكي أي جعليت قداني قفكي أي جعليت ويا هكلا خريايو ودني سمير خازويل قلبي هوي بوكسيو إيال درين قصبايو سندا قتني درتدي نفتي جاي شقوسو قمو يشعله خفا لا خايف سنين انت اختيارك قادو روحك لها وقبا سيدي انت اختيارك قادو روحك لها وقبا سيدي
qaybkaan sugayaano nolosha qaybaha ii haaray allaha qaniyan baryaa inaan qurux kaga gudbe qaybkaan sugayaano nolosha qaybaha ii haaray allaha qaniyan baryaa inaan qurux kaga gudbe wadnihii samir qaadoo yeel qalbigii hoy bogsayo iyeel dareena qasbaayayo sanadan qatanee darteede nafti iga yeesha quuso asalaamaa dhammaan guddiga maasha allah axmed aad baad u mahadsan tahay heeskaad qaaday waa heeskii jacaylkii qabyoobay ee nimcaan cabdiraxmaan xasan oo hore u qaaday waxaan odhan karaa meelaha qaarkood turukooyinkaad gelisay nimcaan heeska uguma jirto waa xaqiiqa nimcaan oo heeska hore u qaaday uguma jirto meelaha qaarkood turukooyin aad gelisay iyo qurxin kale oo aad u badan oo heeska ku dartay halka dadka qaarkii heesaha markay fanaaniintu leeyihiin qaaliga ay dilaan adigu nimcaan heeskiisii waxbaad ugu dartay aniga dhankayga haa foorfaydaan ku siiyey anigu dhankayga shucuurta erayadii ay xambaarsanaayeen sidaad u muujisay waan ku qancay codka waan ku qancay turukooyinka hobolkii heesta lahaa uu sameeyey sidaad u martay iyo inaha kale aad ku sii ladhay sidoo kale waan ku qancay teembada sidaad u raacday sidoo kale masraxa dareenka shucuurtana sidaa intaaba anoo eegaya way ii soo jiidatay sidaad u qaaday maasha allah haaban axmed cabdulle xasan labada guddi waxay ku siiyeen anigana waxaan ku leeyahay shimaali axmed shimaali 100 jeer intaasi kadib muuqaalka axmed ayaa waxaa lagu faafiyey baraha bulshada waxaana ugu dambeyn uu gaaray fanaanka heeska uu qaadaya iska leh ee nimcaan cabdiraxmaan hilaac oo dhanka kalena ah guddoomiyaha hobolada waaberi waxaana nimcaan uu sameeyey ballanqaad isagoo sheegay inuu caawin doono wiilkaas welibana si degdeg ah uu ula kulmi doono nimcaan ayaa bartiisa facebooka waxaa ku soo qoray hibo faneed run ahaantii aad buu u cod macaan yahay inankan dad badan ayaa ila soo wadaagay xogtiisa insha allah waxaan rajeynayaa inaan kulanno maalmaha soo socda wiilkan da'da yar ayaan waxba arki karin oo aragga ayuu la'yahay balse niyadiisa ayaa ah mid meel fog hiigsanaysa waxaana uu sheegay in rajadiisu ay tahay inuu fanaan weyn noqdo mustaqbalka